assalaamu calaykum. Waxaad dhegaysanaysaa oo aad daqiiqadaha soo socda haddaad waqti haysid aad ka faa'iidaysaa barnaamijkan haddaad dhammaysatid macluumaad aad u fara badan oo waqti yar lagu soo koobay oo aad diinta islaamka iyo khilaafaadka dadka muslimiinta u dhexeeya aad fahmi doontid meelaha uu ka khaldan yahay iyo meelaha uu ku saxan yahay. barnaamijkan maxaan usoo diyaarinay waxaan aragnay social mediaha iyo meel walba culimo Soomaaliyeed oo isradinaya oo iskhilaafsan oo midba midka kale uu ku sheegayo waxaad ku sugan tahay baatil, aniga ayaa xaq ku sugan. ra'yigayga iyo aragtideeda cidda soo raacda ee aanu isku aragtinahay waa firqatu naajiya, jannaday galayaan. ciddii naga duwanna waa dad daalam oo mudulliina weeye. arrintaas iyo waxaynu isbarbar dhigaynaa dadkii hore ee saalixiinta ahaa iyagoo kala aragti iyo ra'yi duwan haddana inay dad muslimiin ahoo midaysan ahaayeen oo midkoodna uusan kan kale u arkaynin inuu baadil ku sugan yahay, midkoodna uusan isu arkaynin inuu keligii xaq ku sugan yahay. waxaynu wada fahmi karnaa oo caan ah oo qof kasta marka loo sheego uu fahmi karaa afarta mahdabood. dad badan waxay arkeen iyadoo la yidhaha afarta mahdabood maxay yihiin? ma dad colay ahaayeen? ma qaar baa xaq ku sugnaa? ma qaar baa baadil ku sugnaa? maxay iyagu isu fahamsanaayeen iyagoo kala aragti duwan haddana dadkeenna hadda joogaa markay kala aragti duwanaadaan ay colka u noqdaan? bal waxaynu eegaynaa oo marka hore eegaynaa afartaas mahdabood ee xanafi, maaliki, shaafici iyo xambali waxay cilmi baadhistooda iyo aragtidoodu iyo qiyaaskoodu ku salaysnaa iyo say iyagu u midaysnaayeen iyo waxa sababay midkoodna inuusan waxa uu sheegayo uusan diin ka dhigin, uusan odhan kan unbaa xaqa, uusan u odhan waxa ay ku kala duwanaayeen iyo mid waliba cilmi baadhistiisa waxa uu ku saleebaynu eegaynaa. tusaale waxaynu soo qaadan karnaa imaamu abu xaniifa oo kale wuxuu cuskaday aragtida iyo qiyaaska waxa loo yaqaano alra'yi walqiyaas waxa loo yaqaano. marka hore wixii aayad cad oo qur'aan ah oo nas ah oo muuqda oo la yaqaano daliilkeedu uu ku salaysan yahay cilmi baadhis iyo muran iyo isqabqabsi uma baahnayn, muslimiinta way u caddaayeen xilligaa. sidoo kale wixii axaadiistii rasuulka ay caddaysay ee muuqda ee la yaqaano way caddaayeenoo dee muran kama jirin. waxa afartan nin ay ku kala duwan yihiin waa waxa loo yaqaano fiqhiga. fiqhiguna waa fahamka, yacni waa fiqhi imaam shaafici, fiqhi maaliki, waa fiqiga ee aayado ay isku haysteen iyo axaadiis ay isku haysteen iyo mid gaalaynaya toona ma jirin. mid waliba wixii aayad cad loo waayo xadiisna loo waayo ayaa nin waliba cilmi baadhis intuu sameeyey mid wuxuu qaatay sida imaam xaniifa haddan soo qaadanayno oo kale waxa la yidhaahdo alra'yi walqiyaas, ra'yi iyo qiyaas oo uu uga qiyaas qaadanayo wixii hadda mawduucan hadda ka hadlayo ama arrinta hortaagan dhacdooyin hore iyo aayado qur'aana iyo axaadiis iyo dhaqamo hore oo dhaqamada xilligii saxaabada iyo wixii dhacay buu uga qiyaas qaadanayay. marka qiyaas iyo ra'yi buu isticmaalay isagu. dad badan baana runtii dabicsanaantiisaas iyo sida uu u arkayo iyo sida uu maaragtay dariiquu maray ku qancay. ma aha aayad qur'aana daliilka waxa cad ee daliilahe loo helo aayaddii qur'aanka ahaa waa muslim baa lagu wada yahay. xadiiskii rasuulku wuxuu caddeeyna salawaatullahi wasalaamu calayhi waa lagu wada qanacsan yahay. wixii labadaa loo waayo ayaa fahamka iyo aragtida iyo say u arkaan ayay markaa odhan jireen. markaasaa dadkii qaar imaamu abu xaniifa ayay waxay u arkeen inuu yahay waxaan uu sheegayo ee qiyaaskiisa iyo ra'yigiisu inay yihiin macquul oo iyaga oo muslimiin ahoon cidina odhan baadil baad ku sugan tihiin ayuu maxay ahayta ay raaceen. waxa uuna sheegay inuusan aragtidiisa iyo qiyaaskiisu aanay diin ahayn oo waxaas haddii xadiis iyo aayad qur'aan ah oo kasoo uu khilaafo qur'aanka iyo xadiiska in ra'yigiisa iyo qiyaaskiisa layskaga tago oo aan layska dabagelin isaga ayuu dadka u sheegay.
saas ayuu marka wuxuu noqday qof dadkii kalena aan baadil ku sheegaynin isagiina aan isu arkin qof keligii xaq ku sugan. bal waxaynu eegaynaa haddana imaamu maalik muxuu isagu wax ku baadhay. isagu wuxuu aad ugu tuuntuunsaday saxaabadii reer madiina, asxaabtii reer madiina iyo xilligii nebigu noolaa say u dhaqmayeen, iyo xilligaa imaamu maalik uu nool yahay uu noolaa ee wax qorayay dadkii madiino ku noolaa oo uu u arkayay inay yihiin dad ka soo jeeda oo jiilashii ay dhaleen iyo ansaartii iyo muhaajiriintii dadkay dhaleen ee madiino ku noolaa xilligaa iyo saxaabadii xilligay noolaayeen waxay sameeyeen ayuu wuxuu u arkay inay tahay xujo cad haddii waxa aayad qur-aana loo waayo oo caddaynaysa xadiisna loo waayo markaana maxay tahay muslimiintu aanay meel saarin weli oo ay leeyihiin talo waxani muxuu yahay oo ay ku muransan yihiin. wuxuu u laaban jiray isagu saxaabadii iyo dadka hadda reer madiino ku nool maxay u yaqaaneen waxan oo kale markay arkaan, halkaasuu isaguna salka u saari jiray. hadda ogow aayad iyo xadiis nin muran gelinaya oo isagu intuu aayadda tafsiir saarto odhanaya saasaan u fahmay ma ahayn. nin xadiiskii rasuulka intuu leexiyo iska samaysanayana ma ahayn. labadaasi waxaanay caddaynin ayuu fiqigiisa fahamkiisa ayuu saari jiray. bal waxaan eegaynaa isaga imaamu shaafici baan isaga eegaynaa. isagu jilbaha imaamu shaafici jilbaha ayuu dhulka u dhigtay cilmi baadhis oo wuxuu isticmaalay waxa la yidhahdo istinbaad, inuu aayad iyo xadiis mooyaane uusan meelo kale u leexan, qiyaas iyo ra'yi iyo inuusan aadin ee u yidhaahdo istinbaad uu isticmaalo, inuu qur-aanka iyo axaadiista rasuulka inuu halkaas isagu maro, isaga oo markaa wixii aayad qur-aani caddaysay xadiisna caddeeyey aan muran gelinaynin, wixii labadaasi aanay caddayn ee dadku ay muhmal ka gala, dadka ay shaki ka galo ayuu ka shaki saari jireedoo axaadiista iyo aayadaha qur-aanka ayuu kala soo dhex bixi jiray. marka shaafici wuxuu noqday ra'yi nin u dhexeeya buu noqday maaliki iyo yani labadii kale u dhexeeya, labadii kale aan hadda kor ku soo sheegnay oo xanafi iyo maaliki ayuu dhexdhexaad u noqday oo wuxuu noqday nin labadoodii dhexdhexaad u noqdado aayadihii iyo axaadiistii uun wax istinbaad ka soo qaadanaya. dabcan iyaguna waxay waafaqayaan dhaqankii saxaabada iyo sunnadii rasuulka, aayadihii qur-aanka iyo axaadiistii, halkaasu isaguna mara. sidaas ayay maxay ahaytay horta waxoodu ay ahaayeen. marka xambali wuxuu aad u daliishaday axaadiista rasuulka. isagu xambali saddexda kale wuxuu kaga duwanaa axaadiista rasuulka ayuu maaragtay sunnaha rasuulku buu eegi jiray. wixii aayad qur-aan oo cad loo waayo, xadiiskii oo cadna loo waayo ee dadku markaa shaki xilligaa ay joogeen ka gala, wixii caddaa wuu cad yahay ayuu axaadiista rasuulka iyo sunnada rasuulka ayuu isagu aad ugu tuntuunsan jiray. marka saddexda kale baadil uma arkaynin, ra'yigooda iyo qiyaaskooda iyo istinbaadka, yani ra'yiga iyo waxyaabahan ay isticmaaleen, yani ay dariiqadan ay mareen iyo istinbaadkan maatay shaafici qaatay oo kale, xambali uma arkaynin inuu baadil yahay. iyagana wuxuu arkay dad muslimiin oo dadaalay oo xaq ku sugan oo fahamkoodii saas ah, laakiin bal anigana tanaa jirta ila eego oo anigu sidan iyo sidan ila saxan. dadkii markaa noolaa wixii u arkayay imaamu shaafici inuu micnaha ay sax tahay siduu wax u qiyaasayna way raaci jireen, lagumana ceebayn jirin. kuwii xambali raacay oo xambaliye noqday ee yidhi wixii aayad qur-aan caddaysa waa caddahay, wixii xadiisku caddeeyana waa cad yahay, wixii intaa laga waayay in sunnada rasuulka laga dhex baadho oo dhaqankii iyo halkaa la maro ayaa saxa oo xambali raacayna laguma ceebayn. ninka kale baadil kuma sheegaynin. runtii waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo maxay aragtidooda u kala duwanaatay. aragtidooda waxyaabaha kala duwaya waxaa ka mid ah, waxaa laga yaabaa mid ka midihii way kala cilmi badnaan karaan. 4 nin oo bini aadamku yani isku cilmi maha, qof waliba qofka kale wuxuun buu dheeryahay.
وفوق كل ذي علم عليم وحال يابا حديث نينكني او اركي inaan kan kale arag waxa laga yaabaa xadiiskani uu arko daciif inuu yahay inuu kan kale saxiix u arko marka taas ayaa sababaysa waxa kale oo iyana sababaysa inaanay isku meel ku noolayn oo xilliyadooda iyo meelaha ku kala nool yihiin iyo dhaqamada iyo wadamada ku kala nool yihiin in ay laftooda kala duwan tahay oo ninka Baghdad ku nool waxyaabo dhaqan oo curfi oo Baghdad caadi ka ah baa laga yaabaa Dimashq iyo Masar iyo inaanay caadi ka ahayn iyo maxay tahay Madiina marka xilligii iyo waqtigii iyo makaankii ay meesha ku noolaayeen iyo xadiiskani arkay oo san kan arkin iyo xadiiskani daciif u arko kan saxiix u arka iyo fahamka uu qofka bini'aadamku wax fahmaya iyo ra'yigooda kala duwanaan kara iyo waxaasa kala duway laakiin dad aayad quraan iyo xadiis isku haysta oo midna midka kale uu san baadil u arko ma ahayn mid walba kale xaq inuu ku sugayo buu arkay sidoo kale waxa madahibtooda kala duwaya mid waliba wuxuu lahaa arday buu lahaa ardaydii baa wax sii qoray oo cilmi baadhis sii sameeyay markii raggana dhinteen kadib ayaa raggii ay wax bareen ayaa raggii kutub qoreen wax baareen maxay ahaaytay cilmi baadhis sameeyeen fikirkoodii fiqigoodii ay wax ku soo dareen waxyaabo markii xilligaas sax loo arkay ay ka dhimeen waxaaba dhacda mararka qaar madhab kaliya oo ama Shaafici ah ama Hanbali ah ama Hanafi ah ama Maliki ah in madhabta dhexdeedii laba arday ay kala fikir duwanaadaan oo madhabta dhexdeedii xitaa khilaaf marka qaar ka dhaco khilaaf ma aha aayad quraan la isku qabsaday mid xadiis la isku qabsadayna ma aha waa khilaaf ku salaysan fiqhi dhammaan waa inaad fahamtaan waa faham kelmadu fahamka weeye waxa warsaanaan u fahmay iyo sidan iyo waxa hadii aayad quraan loo waayo xadiisna loo waayo wax la yaqaano muslimiinta oo maartay caadi dhexdooda caan ka ah oo la yaqaanana uusan ahayn oo wax cusub u noqdo warniyahow sidan aan u arkaado xadiiskan ayaan maartay uga qiyaas qaadanaya war maya ra'yigana igala haboon maya anigu istinbaad baan sameeynaya oo aayadaha iyo xadiiskan kala soo dhaxbaxaya war maya anigu dhaqankii saxaabada iyo maxay ahaaytay reer Madiina anigu eegaya sidaas weeye horta marka ardayda dambe nin waliba ardaydiisi ay kutub sii qoreen ee fikirkooda lahaayeenna madaahibtii waxay keentay khilaaf in madhab dhexdeedii xitaa ay iskhilaafto ayaa dhacda waxa muhiim ah inaynu fahamno yaani in dadka ra'yigoodu uu mid noqdo iyo midnimadoodu waa kala gaar macnaha in dadku mid noqdaan macnaheedu maaha in ay isku ra'yi noqdaan maaha macnaha dadku inay haday rabaan midnimo waa inaan isku ra'yi noqono hadaadan ila ra'yi ahayn ma midoobayno saas maaha inagoo midaysan oo xadiiskii iyo diintii iyo islaamkii iyo wixii sunnigii iyo wixii ku midaysan ayaa iga ra'yi duwanaan kartaa annaka ra'yi duwanaan kara ma aha marka in midkii gaal yahay xaq mid ma aha oo ma oran kartid xaq macnaha anuun baa fahmay ina xaq waa mid oo macnaha hal ma hadalku ma jiro xaq waa mid oo waakiin ilaahay iyo rasuulka iyo dariiqa islaamka laakiin xaq kuma midaysna adiga kuma midaysna cidii adiga ra'yigaaga qaadata urur diimeedkaagu waxa uu raba sax u aragta macnaha xaq sidaa mid kuma aha oo cidii adiga aragtidaada ka duwanaata macnaheedu maaha in uu baadil yahay oo xaqi uu intan ku kooban yahay aad aragtid maaha taas ayaan uga goleeyahay marka runtii waxaynu u baahanahay inaga oo kala aragti duwan oo kala ra'yi duwan inaynu isku mabda ahaano oo dadkii iyaga oo ay noqonin macnaha saan wax u arka hadaadan u arkin gaal baata sidan wax u arka hadaadan wax u arkin baadil baad ku sugantaa sidan wax u fahmay hadaadan wax u fahmin muslim ma tihid dhiigaaga banaan daal mudil baa tahay waxaad fadwootay waa khalad maxaa yeelay anigu saan u arko uma aragtid marka runtii waxaynu u baahannahay in aynu dib ugu noqono yaani darbu saalixiin iyo salafu saalix sidii ay ahaayeen aynu uga qiyaas qaadano iyadoo la kala ra'yi duwan yahay inaad walaalkaaga kale ee cilmiga leh ee shiikha ah aad ixtiraamtid oo isa salaamtaan oo nadwooyin wada qabataan iyadoo oo bulshada midnimadeedii aydan ku xiraynin in ra'yigoodu inay mid noqdaan macnaha in dadku midoobaan kuma xidhna in ra'yigu laga midaysnaado iyadoo la kala ra'yi duwan yahay baa midnimada la ilaalin karaa marka barnaamijkeenan intaasaan ku soo koobaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu